السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملو بدوني joogtaan soo dhawaada subscribe saaro qaybta gamalalkana furo taas waxay ka saacidi doontaa muuqaal walba mise xog walba aan soo gelino inuu fadhigaaga kugu soo dhaco youtube-kana uu ku soo diro gambalel uu ku leeyahay waxaa la soo geliyay muuqaal cusub oo ku saabsan mowduuc hebel waa maasan tahay soo dhawo mowduucaani haddii aad ka heshay fadlan muuqaalka like saar waxaynoo tahay dhiirigelin aan ka qaadeeno like-taada wixii aragtidaadana waxaa idinoogu reebtaa qaybta hoose ee commentiga waa maasan tahay soo dhawow waxaan rabaa inaan soo bandhigo caddeemo badan waxaan baaris ku sameeyey qaabkay ugu biiraan fanaaniintan diintani loo yaqaano illuminati ama maasoniyada diintani waxay xiriir dhow la leedahay fanaaniinta iyo dadka caanka waxay la sameeyaan xiriiro qoto dheer ah waxay ka dhaadhiciyaan ama u daaraan filin ah in ay ka dhigayaan caan taajir ka dhigayaan adduunka oo dhan bara doono fanaankaasi ama qofkaasi caanka ah ama danihiisa ay u oofi doonaan haddii uu u saxiixo warqadda ama heshiiska ay u soo bandhigayaan heshiiskaasni oo qarsoon oo qofka uu ogaan doono markii uu saxiixo kadib ugu dambeyn markuu ogaado fanaankaasi nafsad ahaantiisa inuu iibiyey uu ka iibiyey loo yaqaano illuminati maasoniyada sidaas darteedna nafsadiisa caadi si toos ah u maamulanayaan qoladan loo yaqaano maasoniyada markaas kadib wuxuu dareemaa shalayto oo ka shalaynayo noloshiisii horeeto iyo noloshan uu hadda ku jiro waryaan idinku daalin waxaan wadaa caddeemo badan fara badan waxaan baaris ku sameeyey website-yada lambarada lagala xiriiro qoladan loo yaqaano illuminati ama maasoniyada badanaa waxa aan youtube-kan ama channelkan soo geliyo anigoo aan soo hubin aan baaris ku sameynin iskama soo geliyo dad waxaan arkay igu mucaaradayo fadlan qofkaasi waxaan leeyahay shaydaanka iska nar waxa kaa hadal siinayo waa shaydaan sababtoo ah aniga waxaan kuu soo bandhigay caddeemo muuqaal ah oo caadi qofka haddii arrintaas ku jirin maxaa u geeyey calaamadaha shaydaankaasi maxaa ku qasbay inuu qaato calaamadaha shaydaanka sababta oo fanaaniin kaleeto waan aragnaa laakiin ma haystaan ama calaamadaha aan ku aragna fanaaniintani kuma arkin marka muuqaal fahmin inaan fanaan targetka dhiganayno ama aan dabagaleyno xaqiiqdeena mise barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay fanaaniinta aan u aragno in ay sitaan calaamadaha illuminati haddii ay daacad ka tahay iyo haddii jaahilnimo u geysay waxaana rajeynayaa haddii ay jaahilnimo u geyso markay muuqaaladan daawadaan in ay iska dhaafi doonaan eena ka toobad keeni doonaan sababtoo ah waa riski arrintaasi oo diintaada ayaa shaki galayso okay waxaan gudaha u gali doonaa mowduuceena maanta farantigana kuu muuqdo waxaa isticmaala qolada loo yaqaano illuminati ama maasoniyada waxay siiyaan qof walba oo xubin ka noqda diintooda ama bulshada ay isku magacaabeen bulshada nabadda siday ay ka aaminsan yihiin waxay siiyaan farantigan fanaan walba iyo qof walba caan ah ee ka mid noqda gruubkooda loo yaqaano illuminati haddaba waxaan baaraynaa fanaaniinta soomaaliyeed ee farantiga noocan ah xiran ama heesaha ku soo bandhiga tusa dhallinyarada soomaaliyeed waxaa idin markhaati ah indhihiina sida sawirkaani ka muuqato fanaanka lagu magacaabo King Arash oo ku luuqeeya heesaha loo yaqaano raabka waa fanaan soomaaliyeed wuxuu waayihiisii hore mise waayihiisii dambe ku qaatay noloshiisa inta badan magaalada muqdisho haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Kenya oo xarun u ah qolada loo yaqaano Masonic ama Illuminati waxaan baaristan waday waxaan ku soo ogaaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo diinta Kirishtaanka diinta Masiixiyiinta Kirishtaanka iyo diimaha kale ee gaalada ku qaatay dalka Kenya waxay xarun u tahay gaalo badan oo kaniisada ku leh
si ay u gaalaysiiyaan ummadda islaamka ah diintoodana qalqal u geliyaan. sida idin muuqata fanaankani wuxuu xiran yahay faraanti la mathaal ah faraantigan loo yaqaano illuminati ee isticmaalaan qoladani loo yaqaano maasoniyada. weli haddii shaki kaaga jiro inuu faraantigan xiran yahay, waxaad booqataa heestii ugu dambeysay uu la qaaday fanaanka loo yaqaano Wizz-B. heestii ugu dambeysay ku luuqeynayaan Queen Arash iyo Wizz-B. heestaasi booqo, waxaad eegtaa gacanta Arash faraantiga ku jiro mis leeyihiin faraantigan. haddii faraantigan naftigiisa ka shakaysan tahay, waxaad googlaha ku qortaa illuminati rangis ama af ingiriis waxaad ku qortaa faraantiga isticmaalaan qolada loo yaqaano illuminati masonic. kadib waad arki doontaa faraantiyada ee isticmaala illuminati. waxaan gudaha usii gali doonaa heesaha kaleeto oo Queen Arash ku qaaday Muqdisho. ma xiran yahay faraantigani? ama heese kaleeto uu qaaday Queen Arash ma xiran yahay faraantigani oo ma soo bandhigayaa oo indhaha dadka ama dadweynaha ku xiran heesihiisa ma tusayaa faraantigani? bal aan isla aragno. mar kale faraantigii isla asigii ahaa ayuu xiran yahay. heestani wuxuu ku luuqeeyey asigii fanaan loo yaqaano King Zola. wuxuu ku qaaday heestani magaalada Muqdisho. isla faraantigii idin muuqda ayuu xiran yahay. haddii uu shaki kaaga jiro, fadlan si aa usoo shaki baxdo waxaad tagtaa googlaha, waxaad raadisaa calaamadaha illuminatiga. anigu kuma dhahayo Queen Arash wuxuu qaatay diinta shaydaanka, balse waxaan ku tusayaa calaamadaha ay isticmaalaan qolada loo yaqaano illuminati masoniyada inuu calaamadahaasi xiran yahay ama ka turjumayo. weliba intaani kuma ekeen, waxaan raadiyey cadeymo badan. waxaan kuu soo bandhigayaa sawiro badan oo caddeyn ah. indhahaada ayaa ku macalin ah. kuma dhahayo Queen Arash wuxuu qaatay diinta shaydaanka, balse indhahaada ayaa ku macalin ah. haddii aad shaki ka qabtidna, waxaad booqataa qaybta googlaha oo waxaad raadisaa waxyaabahay isticmaalaan illuminatiga ama masoniyada dadkani loo yaqaano ee caabuda shaydaanka. Oh my God. okay, sidoo kaleeto waa u jeedaani Queen Arash wuxuu bixinayaa calaamad kaleeto oo astaan u ah qolada loo yaqaano illuminati ama qolada loo yaqaano af Soomaali ahaanta masoniyada. astaantani uu bixinaya labadii safar siduu isku kor saaray bal eega. anigu kuma dhahayo Queen Arash wuxuu qaatay diinta shaydaanka, balse wuxuu bixinayaa calaamadihii lagu yaqaanay qolada loo yaqaano masoniyada. bal aan isku aragno flagga ama calanka mise astaanta masoniyada weyn ee dadka intiisa badan ay yaqaanaan. ayaan dhabeedna dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay ku qabsadeen fanaanka loo yaqaano Qamar Suugaani. okay, waxaan soo qaadan doonaa calaamadaasi. bal isku eega calaamadani iyo Queen Arash calaamaduu bixinaya mise astaantu na tusaya Queen Arash. bal aan isla aragno. okay, qof walba ee aqliga u saaxiibka ah wuu dareemi karaa mise wuu fahmi karaa Queen Arash inuu bixinayo astaamaha loo yaqaano illuminati mise masoniyada. ilaa hadda ani kuma dhihin Queen Arash wuxuu qaatay diinta shaydaanka, balse ilaa hadda wuxuu na tusayaa calaamadihii shaydaanka ama qolada shaydaanka caabudo calaamadahay isticmaalaan ee loo yaqaano illuminati symbols. haddii aad u malaysa hadalkayga been, waxaad booqataa googlaha, waxaad ku qortaa illuminati symbols. waxaad arki doontaa calaamadaha iyo astaamaha masoniyada ee isticmaalaan ee u dhiibaan fanaaniinta iyo dadka caanka ah. fiiro gaar ah, ilaa hadda aniga kuma dhihin Queen Arash wuxuu qaatay diinta shaydaanka, balse indhahaada ayaa ku macalin ah. faraantiga waa faraantigii, isla faraantigii gacantiisa qaabkuu bixinayo waa qaabka masoniyada. magaalada Nairobi waxaa lagu gaalaysiiyaa dhalinyarada kasoo carartay qaxa iyo dhibaatada ka jira dalka Soomaaliya. markii ay Kenya imaadaan, waxaa la yiraahdaa waxaan ku siinaynaa nolol, waxaa ku siinaynaa caannimo, waxaa kaa dhigaynaa taajir, waan ku dhoofinaynaa, waxaa ku geynaynaa Canada, Mareykanka iyo Yurub intiisa kale.
balse waxaa qaadataa diimahan oo baadilka ah. qofkii markaasi aan iimaan lahayn, diintiisii wanaagsaneed ee islaamka ahayd wuu ka tegayaa, wuxuu qaadanayaa diintii baadilka ahayd. Okay, kiin arash aan ugu gudubno intaani. waxaan rabnaa inaan ku sameyno fanaaniin badan aan ka shakisannahay oo bixinaya calaamadaha loo yaqaano illuminati ama maasoniyada. fadlan igu taageer si aan dabagal ugu sameeyo, ummadda Soomaaliyeedna aan ugu digo in ay raacaan ama calaamadahaasi ay isticmaalaan, sababtoo ah waa astaamaha lagu caabudo shaydaanka. waa mahadsan tahay. muuqaalkaani haddii uu soo gaaray, fadlan like saar. like-taada waxay inoo tahay dhiirigelin si aan baaris kaleeto, xog kaleeto aan kugu keenno. janaalkaani ku xirnow oo saar subscribe si aa u heshid muuqaalkaani muuqaalka xigo waxaan kusoo bandhigayaa bulshada ama fanaaniinta meesha iska diiwaan geliyaan iyo qaabkay ula xiriiraan iyo shuruudaha lasoo hordhigo. xogtaasi arrin ku saabsan iyo website-yada iyo lambarada ee isticmaalaan qoladan maasoniyada loo yaqaana ee fadhiya Kenya iyo wadamadan kaleeto ee Africa ayaan idinla wadaagi doonaa. si aa u heshid muuqaaladaas kale, fadlan janaalka subscribe saaro, qaybta gamleelkana furo si muuqaalka markii aan isla markii soo geliyo oo notification YouTube-ka ay kuu soo dirto lagu dhaho muuqaal cusub aa la soo geliyey Mira Show. waa mahadsan tahay, soo dhawow. wixii aragtidaada waxaa igu soo qortaa qaybta hoose ee commentiga. halkaani waa Mira Show.